waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay cod ka siiyeen Maxamed Cabdi Waare oo ku guuleystay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Casmaan Bare Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada iyadoona sidoo kale محمد عبد وار لو داريه حلقه مدحتنimada dowlad goboleedka Hirshabelle وزيرك وزارة arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo matalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaabilsanaha urur goboleedka IGAD arrimaha Soomaaliya ayaa dhankooda hambali u diray madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyagoona sheegay in doorashada maanta ka dhacday magaalada Jowhar ay tahay doorasho xalaal ah maanta doorashadii inta ka dhacday inay ahayd doorasho xalaal ah annakum matalayna international community oo la soo wakiilatay inaan goobjoog ka noqono aan u kurgalno waxa dhacay inay si xalaal ah ku dhaceen waxaan u rajaynaynaa maamulkan inuu noqdo maamul horay u marayo maaragtay horumar wanaagsan keenayo waana u duceynaynaa gobolka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare hambali waxaan iyadana u hambaliyaynayaa musharaxiintii la xisaabaysay ee toddoba ahaa ee kale iyo sidii wanaagsanayd waa iyaguna ay doorashada u aqbaleen natiijadii ka soo baxday iyadana baan ugu hambaliyaynayaa halkan doorasho ayaa ka dhacday sanduuqa cad la dhigay doorashada markii horeba reer Hirshabelle ayaa lahaa مسؤولين إلى هاي بيهاي كرسي إليه بابلانا يجعل صباح يعد على الرمان وحي وقع بيسوه الفن وحضارة ولود الشيب ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa kalmadahooda qaatay iyagoo sheegay in si wanaagsan ay u shaqeyn doonaan shacabkooda haddii dhowr bilood ka bacdi aad maqashaan madaxweynihii iyo baarlamaanka is haysta qofka dambigaas iskale maanta waa garan kartaan u malayn aniga iskale sidaas daraadeed waxaan raadin doonaa kalsoonidiina waxaan raadin doonaa la tashigiina waxaan u hoggaansami doonaa go'aanadiina dowladnimada saas ku dhisan حمد أوكر حسن حمد الله تلفزيون عالمي Somali News مقالة Jowhar